Waa qaybtii 18aad qisooyinka nebiyada. Waxaan qaybta hore ku soo qaadanay qisadii iyo imtixaankii la mariyay Nebi Yuusuf calayhi salaam. Haatanna Nebi Shucayb calayhi salaam. Alla subxaanahu wa tacaala wuxuu reer Madyan u diray Nebi Shucayb. Madyan waxay ka mid ahayd qabiilada Carbeed, waxayna degganaayeen hareeraha Shaam. Waxay ahaayeen dad tiro badan oo jir ahaan xoog badan. Waxaa loo barakeeyey irsaaqada iyo miraha. Intii ay ku shukrin lahaayeen nimcooyinka Alle, waxay adeeceen shaydaanka, ku kufriyeen Allihii abuuray. Waxay caabudi jireen geed weyn, haddana waxay qiyaamayn jireen beegga iyo miisaanka, waxayna cuni jireen xaaraanta. Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu u soo diray Nebi Shucayb calayhi salaam, wuxuuna Nebi Shucayb ugu yeeray inay caabudaan Allah oo keliya, oo aysan shariik u yeelin. Wuxuuna ka reebay inay caabudaan geedkaasi. Wuxuu faray cadaaladda, wuxuuna ka reebay dulmiga iyo fasahaadinta arlada iyo qiyaamaynta beegga. Dadkii sidaa loo wacdinaya waxay la soo taagnaayeen, hantideenna annagaa iska leh, wixii aan doonna ayaan ku samaynaynaa. Waxay guda galeen inay ku jeesjeesaan Nebi Shucayb, isagana markasta wuxuu xasuusin jiray nimcooyinka Alle. Marar badan ayuu Nebi Shucayb uga digay cadaabka Alle, wuxuuna xasuusiyey wixii ku dhacay qoomamkii iyaga ka horreeyey, balse way ka jeesteen hadalkaasi. Waxayna bilaabeen inay ugu hanjabaan Nebi Shucayb iyo intii rumaysay inay degmada ka saari doonaan. Ugu dambeyn, Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku soo dejiyey cadaabkiisa kuwii diiday amarkiisa, kuna jeesjeesay nebigiisa. Haddaba maxaynu ka baran karnaa qisadani? 1. Alle oo keliya ayay cibaadada u sugnaatay. 2. Fasahaadinta arlada iyo qiyaamaynta beeca ama ganacsiga waxay keenaysaa halaag. 3. Salaadu waxay ka reebtaa qofka mu'minka ah xumaha iyo munkarka. 4. In dadka loo cadaalad falo waxay ka mid tahay tilmaamaha mu'miniinta. Markanna waa qisadii Nebi Ayuub. Nebi Ayuub calayhi salaam wuxuu ahaa nebiyadii reer bani Israa'iil. Wuxuu degganaa meel ka mid ah Shaam. Wuxuu ahaa nin hanti leh oo carruur, beero, xoolo iyo dhul ballaaran loogu deeqay. Waxa uu caawin jiray dadka danyarta ah ee tabaalaysan, wuxuuna ehelkiisa iyo dadka deegaankiisa ugu yeeri jiray inay caabudaan Allah oo keliya. Nebi Ayuub calayhi salaam wuxuu ka mid ahaa nebiyadii imtixaanka badan soo maray. Waxaa lagu ibtileeyay hantidiisa iyo carruurtiisa oo dhammaatay, waxaana intaa u dheeraa inuu xanuunsaday. Waxaa la sheegaa inuu xanuunsanaa muddo ku siman 18 sano. Kadib Nebi Ayuub wuxuu baryay Alle weyne subxaanahu wa tacaala oo mas-uul ka ah kownkan iyo wixii saaran. Ilaahay waa uu ka ajiibay ducadiisa, waxaana u soo laabtay caafimaadka, hantida. Sidoo kale xaaskiisa waxay u dhashay ubad tiro badan. Alle waa u barakeeyey hantidiisa iyo carruurtiisa kadib markii uu ku sabray imtixaankii haystay. Maxaynu ka baran karnaa qisadani? 1. Sabirku wuxuu ka mid yahay tilmaamihii nebiyada. 2. Adduun waxa ugu wanaagsan xaas wanaagsan. 3. Dadka waxa ugu imtixaanka adag ambiyada. 4. Farajka waxau yimaadaa shiddada kadib. 5. Ducadu waa cibaado. 6. Waa muhiim in Alle loo mahdiyo kolka aad barwaaqaysan tahay iyo kolka aad dhibaataysan tahay labadaba. Markanna waa qisadii Nebi Yuunus calayhi salaam. Nebi Yuunus calayhi salaam wuxuu ka mid ahaa nebiyadii bani Israa'iil. Alle ayaa u soo diray qoomkiisa oo degganaa tuulo lagu magacaabo Niinawaa oo ka tirsan magaalada Muusil ee Ciraaq. Qoomkiisa waxay ka badnaayeen 100,000 oo qof oo isugu jira rag, dumar iyo carruurba. Waxayna caabudi jireen sanamyo, meerayaal iyo xiddigo. Alle subxaanahu wa tacaala ayaa u soo diray Nebi Yuunus oo lagu yaqiinay runsheeg, dhaqan wanaagsan iyo sharaf uu ku dhex lahaa bulshada. Wuxuu ugu yeeray in Allah oo keliya ay caabudaan oo ay ka tagaan sanamyada iyo meerayaasha. Wuxuu Nebi Yuunus xasuusiyey nimcooyinkuu Alle ku manaystay, balse qoomkiisa waxay ku madax adeegeen gaalnimada. Waxayna bilaabeen inay ku jeesjeesaan nebigii Alle. Balse Nebi Yuunus wuxuu uga digay carrada iyo cadaabka Alle. Sidaa oo ay tahayna, cid qoomkiisa ka mida oo rumaysay baa iska yar. Nebi Yuunus calayhi salaam oo arrinkaa ka murugaysan ayaa ka tegay tuuladii kadib markii uu ka quustay in qoomkiisa ay rumeeyaan. Markii uu raacay dooni oo ay in yar socotay ayay bilowday in ay hirarka isqabsadaan.
nebi yuunus waxaa lagu tuuray baddii waxaana markiiba liqay kalluun weyn. nebi yuunus ayaa bilaabay in uu tasbiixsado isagoo ku jira caloosha kalluunka. alla weyne subxaanahu watacaala wuxuu kalluunka faray inuu fasaxo nebi yuunus. rabbi subxaanahu watacaala wuxuu nebi yuunus u sheegay inuu ku laabto tuuladiisii oo uu dadku ugu yeero diinta. kolkii uu u tegay ayay rumeeyeen. eebbaweyne wuxuu ka qaaday wixii kurbo ahaa oo dhan oo haystay, wuxuuna ku galladaystay nimcooyin fara badan. haddaba maxaynu ka baran karnaa qisadan? 1. in alla lagu caasiyo waxay sabab u tahay cadaabka oo soo degdega. 2. in alla loo toobad keeno waxaa lagu faydaa cadaabka iyo kurbooyinka. 3. tasbiixda, istikfaarta iyo ducooyinkaba waxay faraj u furaan qofka dhibaataysan. 4. eebbe subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay ciidamo kala duwan oo cir iyo dhulba leh, kalluunkuna wuxuu ku jiraa ciidankaasi. qaybtan halkaa ha inoo joogto. eebbaweynaha inaga wada aqbalo soonka iyo acmaasha wanaagsan. qisooyinkan la wadaag walaalaha kale si ay ugu cibro qaataan, adna aad ajar uga heshid oo inoo shargareeya. ramadaan mubaarak.